bismillahir rahmanir rahim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono madaxda dowlad goboleedyada intooda badan galmudug hirshabeelle iyo puntland waxay yimaadeen magaalada caasimadda muqdisho waxay u yimaadeen ka qaybgalka shirkii uu iclaamiyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee golaha wadatashiga qaran haddaba sidoo kale waxaa la soo sheegayaa inay damacsan yihiin inay dhexdhexaadin ama waan ay ka dhex sameeyaan ra'iisul wasaare rooble iyo madaxweyne farmaajo wararkii ugu dambeeyay ayaa daawadayaal xaaladda Soomaaliya idinkaga heenaa iyo khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dadaalada lagu doonayo waanta ayaa soconaya halkan ayaan idinku soo koobi doonaa oo warbixintan ayaan idinku soo gudbi doonaa hayeeshee intaan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka furan ee gambalka si durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markaana daawade waxa magaalada caasimadda muqdisho ka soconaya dadaalo xoogan oo lagu dhexdhexaadinayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo toddobaadkan uu khilaaf culus ka dhex qarxay waxa mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ku jiraan wasiiro wadaan dadaalo lagu doonayo in la isugu soo jiido dhinacyada siyaasadda isku haya waa ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa dhankooda ilaa iyo hadda laga helin wax dadaalo ah maadaama ay la safan yihiin ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble sidoo kalena ay ka soo horjeedaan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo inta ugu badan dadka siyaasadda Soomaaliya u dhunduleela ayaa ku baaqaya in labada dhinac la isku keeno isla markaasina la heshiisiyo maadaama Soomaaliya ay waqtigan ku jirto marxalad xasaasi ah oo doorasho ah taasi oo loogu baahan yahay oo kaliya in si wadajir ah looga gudbo iyadoo gacmaha la iseysto waxa markaasi Soomaaliya ka taagan khilaafkan culus oo xal u baahan hayeeshee dadka qaar ayaa la safan dhinac kaasi oo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayay dadku ka soo horjeedaan waxa ayna doonayaan waqtigan in aan waan la gelin sidoo kalena ay doonayaan in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo gabi ahaanba laga masaafuriyo dalka Soomaaliya oo ka ruqaansado dhanka iyo villa Soomaaliya waxa ay ku baaqayaan oo ay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ka dalbanayaan in uusan waqtigan la gelin wax heshiis ah madaxweynaha madaxleedkiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo bishii September ee sanadkan 2021 madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa isqabtay waxa ayna isku qabteen kiiska ikraan tahliil faarax oo ahayd gabar sargaalada isla markaasina ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA balse 26 Juun arageeda ay cid ugu wardambeysay maadaama la sheegay ama hay'adda nabad sugidda oo ay ka tirsaneyd sheegtay in ay markaasi afduubteen isla markaana ay dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab hayeeshee war ka soo baxay al-shabaab isla warkii ka soo baxay NISA iyadoo ka jawaabaysa ayaa waxa ay sheegtay in warkaasi uu sal iyo raad toona lahayn isla markaasina aysan iyagu ka dambeeynin warkii beeninta ahaa ee al-shabaab ka soo baxay dabadeed hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa tallaabo qaadi kari weyday madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo saaxiib dowlaha dhanka iyo Faad Yaasiin Xaaji Daa'ir agaasimiye hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa geed gaaban iyo mid dheerba u koray sidii markaasi kiiskan ikraan tahliil faarax looga weecin lahaa dhanka nabad sugidda iyadoo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu waqtiga meel adag ka istaagay kiiska ikraan isla markaana sheegay in shakhsiyaadkii ka dambeeyay uu keeni doono maxkamadda isla markaana ay mari doonaan cadaaladda Fahad Yaasiin Xaaji Daa'ir kulana jiis oo loo garan ogyahay jiis mareexan Yaasiin Maxamuud Yaasiin Faray iyo sidoo kaleba sargaal lagu magacaabo wadna qabad ayaa waqtigan ku eedeysan kiiska ikraan hayeeshee ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble gudiyadii iyo sidoo kale hay'adihii garsoorka ee arintan u xil saaray ayaa ka gaabiyay waqtiga khilaafkii culus ee soo kala dhaxgalay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxa xaliyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen iyadoo la ogsoon yahay oo aan meesha laga saari karin
in waqtiga ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ka soo laabtay safar dibadda ah oo uu ku tegay dalka qatar ayaana saaxiib dhowlaha madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa ayna siisay 4 sano ee xukunka joogeen iyo sanadkii sharci darada ahaa taageero mug leh oo aan la inkiri karin isla markaana la dafiri karin. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne farmaajo khilaafka u dhaxeeya ayaa waqtigan soo laba kacleeyay dadka intooda badan ayaana waxa ay doonayaan in loo baahan yahay in xal loo helo maadaama xasarada siyaasadeed ee Soomaaliya ay sii kacayso haddii aanan xal rasmi ah loo helin khilaafkan culus ee ka dhex jira labada mas'uul ee dalka ugu sareysa. waxaa la aaminsan yahay in curyaamin dhab ah ay ku imaan karayso arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa golaha shacabka ee waqtigan ka soconaya maamul goboleedyada iyo sidoo kaleba magaalada caasimadda ee Muqdisho. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wasiir u tagay ayaa waxa uu sheegay in ay shaqadooda qabsadaan isla markaana ay ka leexdaan khilaafkan u dhaxeeya ama kala dhaxeeya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo. waxa uuna sheegay in arinta aysan u oolin waxa uu kaliya oo looga baahan yahayna ay tahay in shaqadooda ay si rasmi ah u guutaan ayna faraha kala baxaan arrimahan kala dhaxeeya madaxweynaha. waxaa hadda la fahamsan yahay ay leeyihiin dadka falaqeeya ama u dhunduleela arrimaha siyaasadda Soomaaliya in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uusan waqtigan diyaar u ahayn inuu heshiis la galo madaxweyne farmaajo oo ka walacsan ciidamada badbaadada qaran ee ku sugan isgoyska dabka sayidka ilaa iyo barmuudo ayaa waxa uu doonayaa in uu heshiis ama markaasi xal laga dhaxelo khilaafka kala dhaxeeya ra-iisul wasaaraha Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo la taliyihiisa amniga qaranka isla markaana la aaminsan yahay in arintan isaga uu ka dambeeyo ayaa dadku waxa ay leeyihiin waxa uu ka cararay Villa Soomaaliya waxa uu iminka ku sugan yahay hotel ku yaala airportka Aadan Cadde magaalada caasimadda ee Muqdisho kaasi oo lagu magacaabo Dikala Hotel. Fahad ayaana damacsan in uu halkaasi uga ambabaxo dalka Qatar oo uu guri ka kireystay ama halkaasiba uu ku leeyahay haddii uu Fahad Yaasiin ku sugnaan lahaa Villa Soomaaliya waxa ay leeyihiin dadku kama uusan fakan lahayn ciidamada badbaadada qaran ee ku sugan isgoysyada dabka sayidka ilaa iyo sidoo kale xaafadaha barmuudo iyo Siigaale. waxaa la soo sheegayaa hadda madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Puntland in ay waqtigan doonayaan in ay dhexdhexaadin ka sameeyaan madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ugu dambeeyay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee soo gaaray Muqdisho ayaa maanta waxa uu ka soo degay garoonka Aadan Cadde ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. ujeedka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu yimid magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa lagu sheegay in uu ka qayb galayo shirkiga golaha wadatashiga qaran ee uu kala hore u iclaamiyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble. sidoo kale sida aan ogaanay waxaa madaxweynaha ka soo horeeyay wafdi hordhaca u ahaa kuwaasi oo isugu jira mas'uuliyiin saraakiisha habmaamuuskiisa iyo ciidamada ilaalada gaarka ee madaxweynaha Puntland ayaa hore u shaaciyay in uu ka qayb galayo shirka uu iclaamiyay ra-iisul wasaare rooble wuxuuna taageero ballaaran u muujiyay rooble oo ay si weyn isku hayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo. sidoo kale waxaa hadda ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweynaha Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle oo sida la filayo iyaguna qayb ka ah shirka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee golaha wadatashiga qaranka oo dib u sixid loogu sameynayo doorashooyinka socda kadib markii ay mucaaradka si weyn uga hor yimaadeen hanaanka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. shirkan ayaa waxa ilaa hadda si cad u diiday ka qaybgalkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo asagu qayb ka ah golaha wadatashiga qaranka wuxuuna dhinaca saaray ama markaasi la jirsaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta warbixintii aad ka daawanayseen janalka Xogta Media ee aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay warbixinta muuqaalka like inoo saar, subscribe inoo saar janalka furaga maralkaasi durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo warbixintan mid la cayna inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.